السلام الله عليكم أصحابتي ذا عوالة آذن وقورسدي دمركي وقريه الله صوب بحي رصاصت انتي كهرتي حرير أحمد وهدر لقور رشيني نكلي رادو عوالة آذن في العلنتي دانك رقا والدفاع قلي دفاعي حرتين iyo dumarkii oo weerar rabay in ka daba geen doona hadii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi comment-igana fikirkaaga nagu lawaadsa ku soo dhawaada barnaamijkii faahfaahsan waxa aroos kal ilaab leh oo inaba aan caadi ahayn dhigtay fanaanka Cawaale Aadan iyo waliba sidoo kale Mrs Xiis iyo Cawaale Aadan waqtigooda iska soo horreeyay heesaha waqtigii wada qaadi jireen sanad miya misaadii barkood baa dhigi jiray labadan isku soo baxayaan waxyaalaha horta aan Soomaalida kaga yaa waxa kamid ah waliba dumarka waxa kooka isla ayagii qori jiray labadan waa isku soo baxayaan oo la isugu tala galay hadda waxay leeyihiin Cawaale wajhi mid wallahi aan waxaan fahmay inay dumarka ma ayaga laba group kala mis ayaga jambalka shaqadooda ay tahay shalay dadkii community-kooda qoray labadan waa isku soo baxayaan iyaga ahaayeen maanta rag waxa way dadka karbaasha Cawaale Aadan waa isla ayaga waayahay muuqaal falcelina laga sameeyay falcelin inaba caadi ahayn uga qoslisay muuqaaladii Cawaale markii la soo dhigay TikTok-ga wax duweed la yiraahdo baa lagu sameeyay duweedkii marka dumar ba u badnaa ragna waa ku jireen Cawaale difaaci muuqaaladaas faniga ayaan maanta isla daawan doonaa muuqaalka koobaad marka banaas la fiirino ee aad kaga qosliyay Cawaale Aadan aboo naagta maxaa ka fuursan hadalay aroos tibetaashka abu ku jira maxaa ka fuursan macaam u hormaris marafaadsatay Cawaale degdeg badnida dumarka heerkaasi ka maraysa Cawaale Aadan maxaa ka fuursanay walaalay taashkile waaye taashay xirantahay gabadhan wax ka fuursan malaha aroos cusub waaye marafaadsatay warafaad aroos ka horeeyay dumarka meeshii ugu dambeysay bay ka maraysaa xaaladoodu waa dhiig meeshii la saro dhiig kama imaanayo waayahay muuqaalka xiga aan isla fiirino wah yaa herihe fanaan waa dhamaadi waa la lamlameesooya awooteena furo yaa herihe wah waxaan la arkay shufnaa maraakiib bacdan la hoori macnaha dumarka iyagoo comment bis ugu karbaashayaan qaatiyaa ka taagneen iyagoo muuqaalo inay soo doon wax ku karbaashaan xaalad عجيب فرحسين بابي قدران alaabtaas dumarka ay yaqaan marka alaabta san lahayn maartay indhaha san laga alaabtaas dumarka ku dheereeyo huruuf lambardiyeesha la dhahaa macnaha waa lagu buuxaa waa lagu hambalyeynaa qoftaan uunta u kala xiran waan hambalyeynaa fiiriya iskuwaara hadda gabadhan iskuwaara ma dhahayso haddii xiistaan uu furo mid kale guursado qoftii shil mucaaradaysa ma taas kale or dumaro idin raaca salli calaa hadda mise xiis ma ku wada kacsantihiin oo saas mu jafaysaan haddii xiis uu ka tago oo qof kale uu aado ma dhahaysaan ninkan shalay anaga naga ahayd waa naga fasaxan yahay wuxuu doono iyo wuxuu doono ha qaso ma dhahaysaan xiis haddana tiim yeelanayso tiim xiis ismuujiya ka dhacayso ay Cawaale loo guursaday ba anyway ma maqashan islaantii sidaa iska tagtay soo kama tagin marka hore waxaas weydiinayna naag Djibouti soo ugu aqbashay inuu la guursado ba anyway yaa iska tagtay isagoo faqiir marka hore ba guursatay imkana mabruuk ba anyway calafkooda meeshaas ku dhamaaday ba anyway niraga waxa weeye waa mar hadoo gabadha hore calafkeeda ka dhamaaday gabar labaad ba anyway uu guursan karaa ba anyway say wallahi idii asaan waaldoos yaa laga bas wariya ila war dumaro intay u socotaan aakhir zamaana lagu jiray idinka markii ina xanaaqisaan la ogaaday fanaaniinta hadda waa idinku darnaanooyin xariir Axmed Cawaale Aadan xariif kale la jina coming soon ma ka sii hor waxaan iska qiyaasanayaa wax coming soon la ma jiro hadii kala hadda remember raadiyo wada ogahay waayahay muuqaalka xiga aadum salaam asxaabta ka TikTok wallahi wali TikTok ma halin Cawaale waxaan leeyahay hambaliyo walaalkay hambaliyo in inta dunka ugu qalsanay bay guursatay hambaliyo
haddaadan weligaa tiktok ka hadlin oo muuqaalka ugu horeey uu yahay youtubena waa ka dhex hadashay ogow automatically aa dhaha meeshaan tiktok haddaa kasoo hadashay youtubena waa kasoo hadashay ninkan waa qiiraysan yahay waxa waaye arooska cawaalu la qiiraysan yahay laamiga soo maraya xataa xaafadda intuu tagaaya waa sugi waayey hambalyo kan ilaabo iska soo jaray raggan heerkaasi ka maraysaa macnaha si cawaalo madaxa ugu saaray war Soomaaliya buuqa joojiye reerka iskugu ducay alla ya ciise jacaylkii baa la jiray war romantic caadi ma sha Allah war wada noolaado nabad ku wala hambalyo aan leenahay Soomaaliya ducada ku dar reerka ka daayay deerar bishko ducada kuwii isku waara oo khayr qaba kala hela guriga wiil caano gabar caano in loo soo wada dhaaway reerka sax waa loo duceeyo wiilkaas uu sheegay waayahay bal dumarkii aan dib ugu laabanna marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي عوالي waxaan leeyahay hambalyo وفنان Soomaaliyeed gabadh bulshadana waa fanaanad Soomaaliyeed hambalyo aan leeyahay عوالي noloshiisa inuu sameeyo qasbi yahay qarbo ma aadi passporti wala laga xiriyay Europeanki markaas dumarka afshiinis xataa inuu war maxaa qaldan noloshiisa inuu sameeyo qasbi yahay qarbo ma aadi passporti wala laga xiriyay Europeanki markaas iska normal inuu noloshiisa sameeyo ولا أنا بلي الله يلجنا وقول هذه مسيحي سبحان الله عشانيس دمر ووالنسان والله هدا اسكو ديدان إذن كودن إن هالمر ولا مسيرتان هالمر ولا فرحان كل يوم وصل والنسان مركا شينيس باش مروزا شينيس أف شينيس اللي وهالو ويا نكستيجا شيء غياش حتى واسكنا والله قبل هذا ولا كسب بحلاي هذا لا كسو بحي لا أنت وفيرن لا نقول جيزي فيرن حقي معبود الأرليو markaan xidhanayay dhaxanta iga celinayay intaad igu dhararan tahay qayrkay waan dhaafayaa intaad igu dhararan wariya dumarka waxa qayb waxa jirta rag la safan ilmo war dumarka qaar rag la safanaa jiray waa iga okay qofta waxay taagan tahay heesiisii hore intaad igu dhararan tahay waa dabcan heesta inay wada qaadeen aan jeclahay masxiis inay waagi wada qaadeen aan jeclahay haddaan khaldanahay comment ay ugu sii doontaan heestoodii ugu turtay noo waayahay Do you love me? Yeah, I love you. إيش على عشقي ما شاء الله romantic man عوالة آدم وانيكي ديمون قد ميل كساري legend فناوين وقوضنا قري قرد. Do you know me? I say thank you very much for the congratulations of the والله تورا لا فوق كستمرشوا مرايو الله يضمر ويا لجنكاس أمريكا لابو إنجليزي سومالي يسوي والله يسوي جرتو دري بركو حلينا لجنو لكاكو دون هذا وما سنتاك horta marka koowaad hambalya ayaa la yahay fanaanka weyn Cawaale Aadan mid xigta dumaro iska yeelka inta joojisaan ninka ragga Ilaahay ayaa u fasaxay inuu afar guursadood u awoodo Cawaalana uu awoodo marka ninkan waa legend halaga dhamaada xaaladda meesha ugu dambeysay dagaalkii marowsa macnaha dumaro ka dhamaada iyo rago wax dhintay dabcan barnaamijkan waa aan uga hadlayay filcilintii ay ka sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed guurkii Cawaale Aadan dhanka ragga iyo dhanka dumarka iyo sidii la isku qoriyo qaatay iyo sidii la isku karbaashay iyo meelihii mataqaana la iskala dhacay iyo oodihii la isla jiray iyo buurihii la isla koray intaas ku soo gabagabeynaya ugu dambeyn waxaan leeyahay wax walba adduunku waa calaf adduunyadu waa maadeys dadkuna matalayaan annaga oo dhan kulligeen annagoo dhalan Cawaale iyo gabadhiisa hore maalinkii uurka hooyada ku jireen wax kan qoraal rabbi ku yimid in waqtigaas ay wada joogi doonaan waqtigaas ay kala dhamaan doonaan calaf haduusan soo dhamaan labadan qof Ilaahay wuxuu isugu dareen mana kala kaxeeyeen arooskan cusubna Ilaahay ma hindiseen oo laguma guuleysteen haduusan Ilaahay xaqiisa ka qorneen marka annagu waxaan isku karbaashno waxa waaye isku mataqaanaa bahalkeeyo wax aad wanaagsan ma aha sababtoo ah waa qoraal rabbi guurkaana Ilaahay baa qoondiyo qoray nolosha soo dhamaatayna calafkaasna Ilaahay baa qoray marka Ilaahay wixii uu qoray un baa socda annagu indhahaas un baa ka daaweynaa marka yaa lagu dheeraan baa dhinaca fanaanka Cawaale Aadan hambalyan kale laab ugu diray waxaan leeyahay gurigaaga hore sidoo kugu guuleystay gurigaana Ilaahay kugu guuleeyo adiga iyo walaashii Masxiis isku waara oo khayr qabana kala hela barnaamijka intaas aan ku soo gabagabeynaya hadii aan ugu cusubtahay subscribe taado dhiirigelin like taado codsi comment-igana fikirkaaga wala asaanta ku mid barnaamij kale mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha ismaamulka Soomaaliya social media leh ciao ciao